بسم الله سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وعافنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا ليال وحني ولا أخصنا إن شاء الله بإذن الله الكريم كتابك يوسف الرحيق المختوم وكهلا تاريخ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتابك وحقري الشيخ السيف الرحمن وحنة الكمي الشيخ عبد العزيز حسن يعقوب. قلبي مسلم كستا وحكبوحة شعائلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. شعائلك نوها يو رسولك عليه وأوراسم عليه قفك مسلم أهل. شعائلك إيه حرمد الله يا قف وحيكون حرمت حي حتى خيرك إيه فائدونك لبحلو السلام. نبينا والخير آدنها وإلي مسلم كسته وحو هيا كالقعالو لفته هي مدة الشيء عمل هي قول كسته وهو واجبه نبيه وإنه قراعة وأوفلية وف كسته ومسلمة سيدة كلية آنو نقوى عدين كرنو إيمانك يجعل فآنو هينو عليه وراعيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله كل هاي الخير جعلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل كمل إيمان كنا وحير النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. midkiina ma laha iimaan dhan jeer aan kala qaalisanaado aabihii iyo ilmihiisa iyo dadka oo dhan. waayadii hore ee islaamku kutub badan baa laga qoray taariikh nololeedkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. qur-aankana waxaa ku xusan tusaale wanaagsan oo ee suurad fiican ka bixinaya noloshii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. wuxuuna alle kor ahaaya yidhi isaga oo ka warramaya maxamed sala allahu calayhi wasalam. nin baa caaisho weydiiyey oo ka waraystay dabcigii iyo dhaqankii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. waxay ugu jawaabtay hawaadan akhrin qur-aanka dabciga iyo dhaqankiisu wuxuu ku salaysnaa oo turjumaan ka ahaa qur-aanka macnaha waxa weeye wax kasta oo lagu amray qur-aanka ama lagu reebay qur-aanka dhaqangelintiisa waxaad ka heli kartay dabeecadaha maxamed sala allahu calayhi wasalam. erayo kale haddii aan ku cabirno tusaalaha dhan ee wanaagsan ee dabeeca iyo dhaqan ahaan uu qur-aanku faray aadanaha waxay ku jirtay shakhsiyaddii maxamed sala allahu calayhi wasalam. culimmada xadiiska iyo ahli siirada ee wax ka qoray taariikh nololeedkii iyo siiradii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxay bixiyeen dacal kasta oo ka mid ah dacaladii noloshiisa laakiinse ninama sheegan inuu wada siiyey xaqeedii oo dhan. boqolaal kitaab baa laga qoray taariikh nololeedkii nabiga sala allahu calayhi wasalam lamana dayn doono in laga qoro ilaa qiyaamaha dadci ee shaksi suubanaantiisa awgeed. shaki kuma jiro kitaabkan alraxiiq almaktuub niidda aaburan inuu yahay kitaab qiimo weyn leh oo ammaantiisa leh oo ku saabsan siiradii iyo taariikh nololeedkii maxamed sala allahu calayhi wasalam. kitaabkani asal ahaan isagoo carabi ah waxaa qoray asheekh safi raxmaan shirkii ugu horeeyey ee la xiriiray siirada iyo taariikh nololeedkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaa lagu qabtay sanadkii 1976 bakistan waxaana qabatay ururka dunida muslimka. ururku wuxuu ku baaqay tartan caalami ah oo la xidhiidha in kitaab laga qoro siiradii iyo taariikh nololeedkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. 150,000 oo riyaal sacuudi ah oo abaalgud ah baa loo xadiyey 5 kitaab ee gasha kaalinta koowaad. 170 qaar qoraalo baa ka yimid dunida xag kasta. intaasi oo qoraal 84 ka midi waxay ku qornaayeen afka carabiga, 64na afka udowga, 21na waxay ku qornaayeen afka ingiriisiga, midna afka faransiiska, midna wuxuu ku qornaa afka hawsaha ee lagaga hadlo galbeedka afrika. guddi culimo ah baa u darasay qoraaladii oo soo saaray natiijooyinkii sheekh safi raxmaan oo ka socday jamciya salafiya banaras indiya ee qoray kitaabka alraxiiq almaktuum oo carabi ah baa helay abaabulkii koobaad oo ahayd lacag dhan 50,000 oo riyaal sacuudi ah.
ماجد علي خان وكسر انت يمين دلهي باهلي أبا الكتك لبعض أبا الكتك سيحالنا وحاهلي دكتور نصير أحمد جام وجامعة الإسلام باكستان أبا الكتك أفرادنا وحالسيو حامي محمود وغير مسارة تيوكين بيسيغي شرانا وحالسيو عبد السلام هاشم وغير مدينة حفلة شرف لغو قيبيني أبا الكلية فلغو قبطي مكة المكرمة لبيع جمانكي ربيع الأول سنة كل يصدح بقول سجاشن في هجرية كتب كتابا وحاسو ساري وفي بيساقوا عربي قرب كتنية مسلمة مكتبته kala duwan baana soo dhaabacay oo ku fidiyay sidoo kale afka carabiga waxaan u jeclaystay Sheekh Cabdilcasiis Xasan Yacquub inuu ku qoro afka Soomaaliga waxaana idan weydiistay Sheekh Safi Raxmaan una ka aqbalay oo ogolaaday siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam xaqiiqa ahaan waa risaaladii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam bulshada aadanaha u keenay oo uu uga saaray muntiyadii ay ku jireen iyo caabudidii aadanuhu iscaabudayay oo aadanaha uga xoreeyey xadiisigii iyo addoonsigii daaquudyadu ku hayeen si ay allah keliya u caabudaan maadaama nasiiradu xambaarsan tahay nuxurka risaalada islaamka sawirkeeda si dhamaystiran looma muujin karo ilaa la isbarbar dhigo sidii adduunku gaar ahaan carabtu ahaan intaan risaaladuna iyo isbeddelkii iyo raadkii ay risaalada alle ku reebtay markii dambe sidaa daraaddeed waxaan soo hormarinaynaa qayb ka hadlaysa qoomankii carbeed iyo heerarkii ay soo mareen iyo xaaladii taagneyd markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo diray carab luuqad ahaan waa lama degaano iyo aaho iyo dhul abaar ah oo aan iyo baatoonna lahayn waqti waayo badan laga joogo baana magacaas jasiiradda carbeed loo bixiyey waxaa kaloo magacaas carab loo bixiyey dadkiis xaggaa degay oo dalka ka yeeshay iyo afka ay ku hadlaan jasiiradda carabta waxaa galbeed ka xiga badda cas iyo jasiiradnimooda siinaay barina gacanka carbeed iyo qayb weyn oo ka mid ah dhulka ciraaq ee koonfureed koonfurna badda carbeed oo ah dhinac ka soo fida badweynta hibiya waqooyiga shaam iyo qaar ka mid ah dhulka ciraaq jasiiradda carabta masaaxadeeda waxaa lagu qiyaasaa 1 milyan ilaa 1 milyan iyo 300 oo kun oo mayl oo dhinac walba ah jasiiradda markii la eego juquraafi ahaan meesha ay ku tahay aad bay u qiimo weyn tahay markii gudaheeda la eegana jasiiradda waxaa ku meedaaran oo dhinac walba ka jira lama degaano iyo bacaad difaac u ah jasiiradda oo ka dhigay qalcad qallafsan oo u diiday quwadihii shisheeye inay qabsadaan oo u taliyaan sidaas daraaddeed waxaad arkaysaa dadka jasiiraddu inay hor ahaayeen arrimahooda u madax bannaan muddo qarniyaal badan ah iyagoo weliba darisla ah laba imbraatoornido oo waaweyn allah weyne oo aysan duulaamadooda iska dhicin karin haddii aysan xamilkaas adag ee alle ku manaystay haysteen markii jasiiradda dhinaceeda dabadda ah la milicsado waxay xuduun u ahayd qaaradihii adduunka ee waagaas la yaqiinay oo badda iyo barigaba kala xiriiri jirtay oo ay isku xeeraysay dhinaceeda waqooyi iyo waxaa ku yimid iminka laga galo qaaradda afrika dhinaceeda waqooyi barina waxay ahayd albaabka qaaradda yurub dhinaceeda barina wuxuu furnaa xiriiraha cajamka aasiya ee bariga dhexe iyo kan fog iyadoo usii furnayd dhulka hindiya iyo shiinaha sidoo kalena jasiiradda waxay qaarad walba kala xiriirtay dhinaca badda iyadoo dooniyahooda iyo maraakiibtooda toos ugu xiran jireen qorshooyinka dekedaha jasiiradda meeshaas ay jasiiraddu juquraafi ahaan ku taal baana sabab u ahaa inay noqoto meel qiimaduhu kusoo degaan oo xudumo ah iskaabsiga ganacsiga suugaanta diinta iyo fanka marka walaalayaal maanta darsigeenu intaas ayuu inoo joogayaa kitaabkeenii raxiiq almaktuum anigoo ah maxamuud jaamac ayaan idinla soo socodsiinayay darsiga lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan allah